السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا saaxiibkii caadif waxaan rajeynaya iska wanaagsantihiin intaa ka bacdi waxaan jecelnahay maanta inaan idinla wadaagno habka ugu fudud aad wax u dalban karaysid adigoo ka dalbanaya dhanka Shein, Alibaba amase Amazon waxayna ku horeyn doonaa dhanka Shein sidii aad wax uga dalban lahayd inaad wax dalbato waxaa u baahan tahay laba arrimood waxaana soo saddexeeya hal arrinkaas oo ah email inaad leedahay mar walba waad leedahay mar haddii aad internetka isticmaashid labada kale waxay noqonayaan inaad leedahay Visa card ama Mastercard kuwaas oo badi dadku hadda ay wada isticmaalaan haddii aadan lahayna ay kugu tahay adiga ceeb raaligelin baa kaa siinayaa si kastaba ha ahaatee ta kale waxay noqonaysaa maadaama aad wax dalbanaysid dhanka internetka inaad sidoo kale heli kartid ama haysatid waxaan loo yaqaano adressku wuxuu kuu saamaxayaa alaabtan aad iibsatay waa meeshii lagu hagaajinayay haddaba Shein markii aad wax ka dalbanaysid waxaa muhiima inaad domainka telesom.so hadda waad heli kartaa haddii mobilka kuugu jiro searching ayaa ku qoraysaa haddii kalena already waad garanaysaa filaya Shein ayaa ku dhufanaysaa astaantiisa markaad ku dhufatid sidan aad soo gashid ilaa markii waxaad samaynaysaa shayga u baahnayd ayaad codsanaysaa tusaale ahaan loft markaas tinu saartid wixii aad u baahnayd markaas inaad order garaysatid wuxuu ku aadayaa qaybtaada waxyaabaha adigu aad ka heshay hometa markaan ku dhufano waxaan ku dhufanayaa meesha loftka xagga sare ku taala kadibna waxaan arkayaa wixii aan doortay marka haddii aan u baahnayn oo aan doonayo inaan xasuusnaado si aan hadhowto u codsado waa ka saarayaa lofta waxaa gudbaynaa waxyaabahan u baahannahay inaan order garaysano kabahan waxaan leeyahay waxaa u baahanahay waa European size-ka inaan order garaysto add in card baad leedahay add to card baad dahaysaa marka dhammaantood markaas ugu darsada xagga u sarreysa waxaa arkaysaa inay ka muuqato 3 xabo taasoo macnaheedu yahay inaad doortay 3 xabo kadibna waxaan leeyahay checkout ayaan leeyahay checkout markaan idhaahdo markiiba wuxuu dhahayaa waxaa u baahan tahay inaad adresska aad soo dooratid marka xagga u sarreysa ayaa markii waxaan leedahay waxaa iska bedelayaa wadanka waxa weeye hadhowto alaabta lagu hagaajiyo waa halkaas afar forma waa 3 for amar nax kadib markii aad intaas dhammaysid waxaad leedahay adressku waxay ahaado default marka waxaan leeyahay save waxaan leeyahay continue ku sii soco continue markaa idhaahdo mar labaad ayaa waxaan dhahayaa checkout maadaama adresskii aan buuxiyey hadda kadibna halkaa markay marayso bartani waxaan isticmaalaynaa seenaad kor soo sheegnay Visa card ama Mastercard okay halkaa markaan marayo waxaan gelinayaa Mastercardkayga halkan waxaa la gelinayaa sanadka shilixaad lixlaatan halkan waxaad gelinaysaa lambarka xagga dambe kaga yaala kaarkaaga aysan muhiim in la arko aysan muhiim ahayn in la arko kadib waxaan leedahay kaarkan xasuusno kadib hadda waxaan leeyahay intaa lacagtoodu waa $18 maadaama ay $18 tahay waan aqbalay kadib waxaan leedahay place order alaabtaadii hadda sidaas ayaa ku codsatay okay
hadda waxaan aragnaa kaarkaygii in laga goostay lacagtii kabacdi alaabta waxaa hubaala inay gaadhayso arsalagas ama adareskii aad ku hagaajisay haddii aad martay processkan faceka ama wejiga wejixiga wuxuu noqonayaa sidii Alibaba wax uga dalban lahayd iyo sida ay iyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin dhanka Amazonta iyadu sida ay tahay iyo mid kasta lacagta sida looga sameeyo. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka faa'iidaysatay si aysan kuu dhaafin muuqaalada kale. isku day inaad ku dhufatid subscribe adigoo mahadsan, lana wadaag asxaabtaada ciddii xiisaynaysa adigoo ku dhufanaya share. wayna fiican tahay inaad ku dhufatid like si ay u gaadha asxaab kale oo ku jirta bartan. waxaan rajaynayaa wixii su'aalay inaad si toosa noola soo xidhiiri doontaan ama dhanka commentiga aad noogu dhaafi doontaan maadaama ay muhiim tahay. waxaana ku soo qaadan doonaa su'aalaha aad soo gudbisaan muuqaalka xiga. waxaana idiin rajaynayaa khayr iyo wanaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa anigoo ah saaxiibkiin caadif.